suuq maalku hadduu fasaado saddexdaa cuquubaa ka dhalata wax badanna waa ka haynaayo jawru sultaanna aragnay shiddat almu'anana aragnay abaarna aragnay laakiin ma toobad keennayo dembigii intaan ka baxnay ilaahay ma u soo laabanay midda saddexaad nabigu sheegay waxay calayhi salaatu wasalaam haddii kitaabka ilaahay lagu dhaqmi waayo dadkana lagu kala saari waayo wixii dhex mara dagaalaan dhammaanin oo sokeeye bay dadka iyo ummaddu faraha la gashaa qabiilkuna waa basalo marka dambe bahbah buu tagaaye labalaba isugu jeedsadaan way isnacaan dil dhac boob isqaxin iyagaa ilaahay isku sallidaan wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaahi ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum ilaahay balaa dhexdoodu ka dhigaya dee dadkii kitaabka ilaahay haddaan lagu dhaqmin cadaaladii ma jirto wixii dhex maray haddaan kitaab ilaahay lagu kala saarin xuquuqdoodiina dulmi baa jiraya kitaabka ilaahay wuxuu u yaallaa in dadku cadaalad helaan qofkuna halka uu cadaaladda u aadayo uu ogaado kitaab ilaahay oo la kala xigin una kala eexan dadka inuu yahay dadkuna ku qalbi degaan oo qofkuu yidhaahdo anigu xil iyo mas-uuliyad raadinteed waxaanan uga baahnayn mar haddaan xuquuqdaydii helayo waxaan dad isku qabanana cadaalad helayo waxba ugama baahni hebel riixi iyo hebel xugubga iyo hebel jagagarab u naqay iyo hebel guruub samaysa waxba ugama baahni dadka intooda badan halkaasay istaagayaan laga yaabo in yaroo isku caydhcaydsata inay hesho laakiin qofku markuu cadaaladii ilaahay uu talagalay waayo maamul iyo xukunaan ilaahay ka cabsanayninna ka aamin baxo shariicadu qaanuunku wuxuu noqon qof walba intuu cad goosan kara ha goosto dadkuna waa col labadii isdishana cadaalad ma helaan in la isku sii diriyo inaysa sii dilaan iyo qof walba cadkii xooggiisa uu ku goosan karay noqotaa wakaa maalin walba laba reer baa naga iska dhigaysa waxay isku dileen mataqaani markaad ka eegto waxay isku hayaan macno darradiisa iyo dadkan iyo inta nafee baxaysa ee qaaliga qiimaheeda qof nin baa wax dilaya reerkii halkii nin baa qisaas lagu yeelan ma yeelaynay dhahayaan markaasay 100 nin u dhiman hal nin bay diidanayeen oo dembi galay in la qisaasee 99 kalaa ku darmatay oo dhimatay caqligee baa sax oo sidaa keenaya qof hal miduu dembi galay aan ku difaacna 100 dhimata xisaab kasta haddaad isu geyso oo dhinac kasta ka keento waa eber bay ka hoosaysaa laakiin waxaa lumay caqligii saxnaa ka saxdaa wuxuu ahaa labada reer inay ku heshiiyaan qofkii kas wax u dila xeerkeennu waa in la dilo inna wax ma dishay nin waliba markuu nin dil yidhaahdo isagaa tiisa fiirin lahaa wallaahi tolkaa way ku soo qabano intay ku dhiyeen baa tiirka lagu xidhi qolo waliba isna wuu badbaadi qofku dadkuna way ka badbaadi deegaankuna way kala badbaadi walakum fi lqisaasi xayaatun laakiin kitaabka ilaahay saha loogu dhaqmo marka la waayey huf ha la ysku baxo xoolaha la kala dhaco ha la isdilo labada isdilaysa waa labadee waa laba isu seediya isdil ninka odayga ahaa gabadhiisu carruur ay dhasho agoona iyo wiilkiisii carruur dhalo agoona labada dhinac ka soo jeeday baa duqii guriga u soo fadhiisan waa labadii agoonood midna wiilkiisaa ka tegay midna gabadhiisaa wadato labadoodiina iyagaa isdilay waa diintee iyo caqlige dadkeenni waa la islaynayaa maxaa la isku leeyahay dhul saxara
reer hebel daaqsin baa la isku laayay yaa degan cidnama degana beer baa ku taalla maya maceel baa ka qodan maya reer hebel aagga ayaynay soo degin oo reer hebelku waa ilmo adeer iyo ilmo abti iyo seedi iyo ilmo habreed nag baa xool iyo dad iyo dunya la isku dhihi maxaa meesha yaalla kitaabkii ilaahay xuquuqda qofku dhul muxuu leeyahay qabiilku muxuu yeelan karaa haabaa laga tegay ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum wakaa la ysku wada baaba'ay ha la ysku baaba'ee kii dhintay xaggee aaday alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaari wey odaygii reerkay guubaabinaya talla ayay leh ogow intaa talla ayay idin leeyahay wuxuu diyaar u yaho ku faraxsan yahay naar aakhara inuu ku guro odaygani dantaada kama shaqaynaya laakiin away caqligii diin ilaahay lagu garan lahaa waxay caanaha isaga day weydaanayso caanaha u cabahayey intuu mantagay markaasuu caqli awa caqligaa ku joojin lahaa waad aragtay intaadan mantagin iska daandhihi lahaa caqli awa haddii diin la waayo caqli ma jiro ninkaan diini alla ka cabsi lahayn caqli saxan ma yeesho se caqli saxan lahayn waxaad ku garan professorka jaamacadaha dhiga haddana jiilka caabudaya ka waranaya ilaah ka dhiganaya intuu lacagta bixiyo oo shamiinto soo gado sanam neef lo iyo geel iyo dameer iyo libax u ekaysiiyo oo guri u dhiso waardiye u sameeya haddana isagii dhib iyo dheef ka rajaynaya isagaana waardiyeeye wayaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu min nocdo caqligii awal aqoontii waxbarashadii awal haddaan diini jirin caqligu u fooraraa bal adigu reerkii duq buu leeyahay ugaasdhe garaadhe suldaandhe boqordhe magaca dooni aduu bixi kama fikiro reer hebel kii dhinta see aakhara janno u gala ajandaha ee qorshaha uguma jirto adiguna kii baad ku dabafaysantahay aakharana waad rumaysantahay muxuu ka shaqaynayaa alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaari buu ka shaqaynayaa bal ummaddan rugmatay ee dhimatay ee naar wada gashay fiiri adigu maxaa keenay hal ninoo qisaas lagu lahaa oo kitaabka ilaahay in lagu xukumo la diiday baa 100 u dhimatay xoolana u baabeen inta dhimatayna naar u gashay oo waa rumaysanaya waa shahaadanaya aakhira naar ma jirto waa og yahay alqaatil waqtul fi naar waa lagu dul akhriyaya kitaabka ilaahay hadaan lagu dhaqmin aqri xumadaas saagam la isku dhahayo waa dunya aakhiraba la isku seegayo adduunna ka tag aakharana waa seegaya bay leedahay waa dunuubtiya macaasida la galay waxaa dhaxashiisa mid afraad nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam axadigiyo ballantoo laga baxo waxay leedahay cadow shisheeye oo ku qabsada waxaad haysana kaa faramaroojiya walam yanquduu cahda allaahi wa cahda rasuulih إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وهي أيام بوقين كفر مروجسته بلن فرق أحد والله إلالينا وإيمان أحد يبلمه والله قبح والنفاق يذنب معصية منافقين تلا كتب معمي وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر هذا بلن قالوا قبح هذا ballanfurku waa dembi iyo macsiyo weyn oo kabaa'irta ka mida cuquubadeeduna waa cadow shisheeye ku qabsay waxaad haysayna kaa faramarooji weyn waa dunuubta cuquubaadka ka dhalanaya ay tahay dadku inay weeleeyaan oy tahay dadku inay ogaadaan maalin kasta cid baana qabsatay malelik baana qabsaday xeele salaasaana qabsaday dargi iyo mingistaana qabsaday TPLF baana qabsatay BB baana qabsatay waxaa doonayde haddiiba aad aragto cid kale intay ku qabsatay inay xil iyo maamul iyo awood ku faramaroojisay
inay dhul iyo dal ku faramaroojisay inay maal ku faramaroojisay dambi iyo macsiyo aad gashay weeye ilaahay u laabo midda shanaad ugu dambaysaay ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam sashantii waan dhameeyay waa zakada la bixin waayo xoolaha ilaahay siiyay waa nicmo ilaahay xuquuq masaakiin buu ku waajibiyey oo zakaa markay qadarkeeda gaadho haddii zakada la bixin waayo roob la'aan bay dhaxashiisa walam yumnacu zakaata amwaalihim ilaa municu lqatara min asamaa walowla lbahaa'imu lam yumtaru haddii zakada dadku bixin waayaan say ahaydna u bixin waayaan roobka cirka ka imanaya baa ilaahay ka xayiraa marmarka uu imanayana xoolaha iyo makastaasaa ilaahay ugu naxariisanaya walowla lbahaa'imu xooluhu haddaynan ahayn lam yumtaru wax roob iyo dhibicba lama siiyeen haddii roob la waayo maxay noqon xoolihii way dhammaan adigana waad faqiiri dembigiina aakhara waa kuu yaallaa saa darteed nicamka aad haysatee xoolihii shukriga ilaahay bay ku bataan oo lain shakartum la asiidannakum waxay ku nuqsaamaan oo aakharihi adduunba cadaab lagu mutaa in xaqii laga bixin waayo dembi weyn oo macsiyada iyo kabaa'irka ka mida roob la'aan bay keentaa sakada haddaad bixin weydana waa mid haddaad khiyaantana waa mid zaka la khiyaanayo ma aragteen zakaatulfitri 2 kiiliya badh reer 20 qof ah 2 kiiliya badh keliya ka bixinaysa ma aragteen faadimo u guddoon xuseen u guddoon ceebla u guddoon xasan u guddoon 2 nin baa isku celcelinayso min 10 qof oo 2 qoys oo min 10 ruux 10kan waxaa laga rabay 25 kiilo inay bixiyaan 10kana 25 bara 50 kiilo 2 kiilo bar laga soo reebay ninka wax qori aqooni inii wax yaqaan iska dhigayay warqada la yiri akhri xarafka horeey garan waay ee kan muxuu ahaa wow la yiri wuxuu buuga dhugaaba inta laga soo reebay buuga qiinay baa inta laga soo reebay 50 kiilo 2 kiilo bar laga soo reebay laba dhagar qabe oo xaqii masaakiinta iyo zakada khiyaamaya baa isku celceliyay ani iga guddoon hay anna adiga guddoon xaaska uga guddoon adna xaaska uga guddoon wiilka weyn u guddoon adna wiilka weyn u guddoon 2 kiilo badh bay 50 kiilo isu bedeshay geela wadaad baa loo yeeraa 5 qaalmood igama go'aan wadaad uu tala keen أنا يقولون سي أفر بانكو سوي علم بودا ولي ما جرتا ولي زي ما جرتا سرق ورق مقال وحوالنا قطمة ما يقول ولا ليه وانقرر يقولوا هي الله هي مركز بطان زكاة لقب بحية اللي يراهدو وذات لليه الشيء انتو قدومو انت بدن سوي عليه in yarna qaat baan garanayna yaa la siraya nigre shabeelle wuxuu yiri soo soomay tuubiye shabeelle ma qorto oo iska cabbi arilaahay saasa loo siraaw ilaahay uu saan keenin buu moodaya tan yaa la khiyaamaya taazaka bixintee maaha midaas zaka bixin maaha sakadu maal ilaahay haduu ku siiyay haday sakada bixinaysa badan tahay maalkaaga badan maalka badan ilaahay ku siiyay nicmada xaqa masaakiinta guda hadii kale ilaa municul qatara min as-samaa roobka dhibciisa cirka ka imanaya baa laga joojinaya walowla albahaa'imu lam yumtaru xoolaha haddaynan ahayn nool ee nafleyda ee kale dhibic biyaa lama siiyan halka waxaan ka aragnay abaarihii sakadoo la bixin waaye abaar bay keentaa suuqoo dadka xoolaha lagu khiyaamana abaar bay keentaa labadooda haddaad isku celceliso waa xuquuqdii dadka ee maalka oo la musuqay ama loo diiday baa abaar keenta iyo roob la'aan
inta masaa'ibka dhacayaan arkaynay waa tusaalayo inta nabigu sheegay halkan xadiis sallallahu alayhi wa sallam waxa ka garan kartaa wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum waxa idinku shaqaysateen dambi aad gasheen cuquubadii way saasay tahay la idin ma wada dareensiinine wa ya'fu an kathir in badan buu ilaahay cafiya ama liyudhiqahum ba'd alladhi amilu bidaadanku waxaa badan mararka qaarkood markay dembigoodii musiibadiisii arkaan xataa hadday toobad keenaan ilaahay waa ka rafciyaa masaa'ibka ilaahay waa ka rafciyaa reer bani israa'iil suuratul acraaf soo lagama sheekaynin arsalna calayhim maxaa lagu soo diray may تضرب بس سديد بيهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ولا القرآن كي يقانوا هذا مركب بالله هر يقدر وسوق قبطين اللي نكهلوا كل إذا هذا تيكون رزم حي ما كانوا بيراد ما كان لا سوق قبط ورعاية تيكون رزم حي رك سوق قبط وين لهنا waayahan dambe xifdiga quraanka waxa lagu tartamaa aayadaha suurada gadaal muu tirin kartaa aayada quraanka suurada hebla gadaal u tiri ba hadda lagu tartamaya iyo numberka in la xifdiyo suurada hebla aayad numberka aakhir lagu yiraahdo wada akhrido tartanka quraanka halkaas hadda maraya marka la soo gaadha ma la rabo wali halka inaad tartanka inaad soo diyaarisa baa marka reer bani israa'iil ilaahay mar duufaan ku sii daayay mar rahba lagu sii daayay dambiga galeen dartii waalkii la qaadaba harra ku jira gogoshii la qaadaba uu dhex fadhiya mar injil baa lagu imtixaanay mar dhiig baa lagu imtixaanay iyo intii kale ayadu sheegtay intaasoo dhan imtixaanku markay yaabaanba موسى يقول ما ريان ربك إنه ودي بيده وأن توبت كيرنا هدينا لقى قاضي مركي لقى قاضي الدم بيقول لي قال نبي بيكون نقنا يانو هل قاضي بيكمل سيان يجوا السلاسة وإلهي يقول يهيبا مركي صار لابتان بوك قاضي يلك وهو قال إنه مسلم inta dulul markaan gal aqoobaadka dhacaya inaan isdaba qabanno dadka la isu yimaado leeyahay maxaan dambi galay war dhibaa ina haystee dambigan galay muxuu yahay war dambi ayaa madadiyaan xoolo ka khayaanay wariyaan wax iska daba marinay wariyaan zakadii bixinay wariyaan xoolaha ku maqan yihiin war haddii uu isugu noqono wardi uu isu baara war waxaan waa dambi aan galay waxaan inoo haystaaye maxay naga khaldamay xageen ka khaldamay waraan dib u saxan oo la noqday in alladina taqaw idha masahum taifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha mubsirun wa arqayan meesha ka khaldamay bas xasuus tadhakkaru wa xasuusanayaan way baarayaan war maxaa dhacay fa idha mubsirun markaaba way arqayaan meesha dhibku ka yimid ay ka khaldameen ay baladan iyo musiibadani kaga daba socoto way arkayaan way saxayaan khaladkooda saasa laynaga doonayaa si guud iyo si gaaraba adigoo keliga ah markay dhibaatooyinku ku dhacaan waxa koobaad ee la sameeyo keliga waa meel la fadhiistaa waxaa la isweydiiyaa maxaa dembi gashay bal maanta baan bal shalay baan bal xagga baan daraad fiiri dad waxay dhex maray shirkatihiin reer iyo ilmaha deriska iyo qaraabada maxaad samaysay dembigaagii baa dib loo baaraa kadibna waxaad ogaan dhibkan kugu dhacay dembigaad gashay baad garan kadib baa dembigii iska six gurigan hadduu dhismuhu meel ka qalloocsan qallooc in la saxo u baahan yahay si uu guriga usii taagnaado si dhibka looga baxo
qof walow ogow sidaa guud ee loo sheegay unbaa aniga adigana waxa dhiba inugu dhacaya khalad iyo dembi aan galnay baa asal u ah markaad dhib aragto intaadan dad kale eedayn soomaaligu dhaqan wuxuu leeyahay eedka carar la yidhaahdo waa inuu cid kale mar walba eedda saaro isagoo eedda iyo dembiga leh waa inuu dembiga qof kala saaro hadda biyaha halkaa yaalla hadduu mid intuu soo mara gacanta ku dhuftay dhacan maxaa meesha loo saaray buu dhihi waadu maxaad ka soo doontay male gurigaa kuugu iman koobka miiska yaallu gacan ku dhufan markuu koobkii jabo wuxuu ku leeyahay maxaa meesha loo saaray oo koob gurigiisi yaalla adaa ugu yimid soomaaliga aad tahay markay masaa'ib iyo imtixaan timaado kuma anfacayso ogow dhibku waa adiga dembi aad samaysay kuma asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waxaad kasbateen musiibadu kuugu dhacday dib isugu noqo dib u xisaabtan dib isu weydii dembigii ka toobadkeen ilaahayna dib ugu laabo u kaa qaada ilaahay dunuubtii gaaluuba ka qaada adoo muslima adiguna qof muslim oo fiican oo nadiifa oo naftiisa ka warqabaad noqon ilaah waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala towbada allah ina waafajiyo dunuubtiiyo macaasidiiyo sharkeedana allah inaga badbaadiyo jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum